waa maalin weyn, waa maalin qaali ah, waa maalinkii qaranka Soomaaliyeed ee 1 Luulyo. Sidaa darteed, waxaa magaalada Manchester ee waqooyiga dalka Ingiriiska lagu qabtay dabaaldeg isboorti. Dabaaldegan oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay kooxda haysata horyaalka wadanka Ingiriiska ee Manchester City, Whitworth Park Sports Club iyo Universal TV. anigoo ku hadlaya magaca ururka Sports Club Manchester Whitworth Park waxaan mahad gaar u jeedinayaa Universal TV-ga caalamiga Universal TV. marka labaad mahad gaar waxaan u jeedinayaa hooyooyinka iyo aabayaasha magaalada Manchester. dhammaantiin arrintan oo kale ma qabsoonteen amba ciyaaraha maanta qabanayna ma dhacdeen. haddaad idinka gacan nagu siin aad baad u mahadsantihiin. absolutely run ahaantii marka hore sidii caadada ahayd dadka soo qaban qaabiyey ay ugu horeyso faaqadaada cayaaraha iyo jaaliyada sportiga magaalada Manchester ayaa mahad ballaaran u naqaya sababtoo ah iyaga waxaas aanu arkana soo qaban qaabiyey. talabaad barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij 3 cisho soconaya oo loogu talagalay in loogu dabaaldego maalintan xorriyadda qaadanay ee calanka Soomaaliya ay dalka Soomaaliya calanka qaadatay. run ahaantii waxaad arkaysaa dhalinyaradii mustaqbalka ku lahayd xirfadda kubadda cagta in la isu keenay. wallahi waa ciyaar fiican, ciyaalka si fiican bay u ciyaareen. hadda Soomaaliya badinaysa oo hoping inay ayagu maanta ka raayaan the rest of the world. maalinkii koowaad waxaa la qabtay ciyaar ay isaga hor yimaadeen caruur da'doodu ay ka yar tahay 12 ee ku ciyaaraysay magaca qaranka Soomaaliyeed iyo caruur kale ee ka socotay wadamada kale ee adduunka, waxaana 4-0 ku badiyay kooxdii Soomaaliya. sidaad aragayt dad badan la geek ku hooyay oo macnaha meel raawsan matalaha qaranka Soomaaliya oo yoo ciyaar la weelado Manchester City axad meel raawsan kun walaalkayna oo ku mid ah ciyaalka oo geekada awlaadis meelun roogan. ilaahay horta calankii kaana haniignaga calankii la haysan ma dad mahayna man ilaahay ma karajeen calankii kaana siitis ee aragna dadkii sidii hore inis jeelayeen ka fayla. maalinkii labaad waxaa caruurta Soomaaliyeed ee ka kala yimid wadamada Jarmanka, Sweden, Norway, Holland, Denmark iyo magaalooyinka wadanka Ingiriiska ay booqasho ku tageen garoomada Man United iyo Man City. daawadayaal waxaan hortaganahay garoonka quruxda badan ee Etihad Stadium ee Manchester City Football Club. Manchester City waa champions of England. dhalinyaradii oo aan la joogo waxay wataan funaanadii iyo maaliyadii kore ee waxay wataan Etihad ay wataan. waa maalintii dabaaldega qaranka Soomaaliyeed, calanka Soomaaliya loo dabaaldegay. waxaa la jooga macallimiintii, maamulka ayaa la jooga. maanta oo ah 1 Luulyo waxaa dhacay ciyaartii la sugayay ee dhex martay kooxda Soomaaliya iyo kooxdii rasmiga ah ee Manchester City, iyadoo wiilashii Soomaaliyeed ay soo bandhigeen ciyaar aad loola dhacay, waxayna ku badiyeen 6-5. Soomaaliya iskuma soo harin, dhalinyartana waxay u baahan yihiin in faraha lagu hayo si fiican loo trakteer gareeyo. 2-0 we're down at the minute, which is not good news for City, but it's all about fun. It's about everybody enjoying the day. Soomaaliya ilmi Soomaalida ciyaaraya wadankana calankeena sharafta lahaan matalina maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay ciyaarta 2-0 ay mareena maanta waa maalin weyne maanta midnimadeena maanta mahad allaale maanta. waa mahadsantiin. waa calankeena ilaahay noo dhoor, ilaahay calankeena kor Allah ka dhigo, calankeena ilaahay noo soo celiyo. hadda waa soo socotaa insha Allah wax yar noo dhiman. calanka Soomaaliya lagu soo bandhigayo talantigii ilmaha Soomaaliyeed ayna ka badinayaan Manchester City. marka waxaan leeyahay run ahaantii arrintan uma baahna federationno iyo xiriiro, waxay u baahan tahay shakhsiyaadku inay Soomaalinimadu inta iyaga ka timaado uu qofku dhaho Soomaali dhaladaan ahay, waan is abaabulaya, dalkayga aan wax u qabanaya, xiriiradana hiliyaho waan la garab taaganaya, waana la shaqeynaya. ciyaartii Man City iyo qaranka Soomaaliya hadda ayay dhamaatay. dabaaldega celebrationka dhalinyarada waa u jeedaan waxay ku dhamaatay 6-5 ayay ku dhamaatay. waxaa ku guuleystay qarankii Soomaaliya. hore idinkugu sheegay waxaan dhahay markaan arkay siday u ciyaarayeen waan ogeen qaranka Soomaaliya waxay ka badiyeen Man City ay ka badiyeen. jaaliyada reer Manchester oo aad isugu duuban waxay sanadkan soo bandhigeen waxyaabo aad loola dhacay siiba dhinaca isboortiga, iyagoo ballan qaaday inay Manchester noqon doonto hoygii horumarinta isboortiga Soomaaliyeed. Jibriil Maxamed Jibriil, TV-ga caalamiga ah ee Universal, Manchester.